liibaan baa waxaad ku tiri liibaan anigaa soo cansaaray oo baraha bulshada baray been baad sheegtay soo baro horta liibaan waxa weeyaan qof hortaa soo jilay wax weliba dadkaa la jinsan abwaaniin iyo fanaaniin ka shaqayn jirtay markaa university v ayuu wax la soo jilay soo bara xabiibti adaa shalay yimid oo kastuumo ku yimid masaana dadka moodaysaa talabaad adigu jilaagee tahay waxba ma batid adigu waxba garanba maysid be iska daba socod iyo caydi ilhaan baa lagu keenay meesha waan ogahay anyway liibaan filin la odhan jiray ka horreeyey xujo ka horreeyey kaafi kala dheeri kasii horreeyey dulmi oo badbaado la dhihi jiray ayuu ku jiri jiray abaayo weliba gabadh la yidhaaho iftin amina iftin ayuu la jiri jiray iyo axmed dhagax iyo faarax martiile lajankeena abwaankeena jilaageena aad taqaaniin marka liibaan ha kusoo duuduufin iskuma dhaweyn isku leebel lama tiidin adigu ka caawin jiray editinka iyo wax walba uu ku baray adigaa garab ka raadin jiray dumaradii ayaamaha dhowda siitay kuwaasaan anigu soo caansaaray iska dhex taasaa laga aqbalaya aliis marka liibaan waa actor hore u baxay halkaa markaa uga imaada arrintaas waxaan doonayay inaan ka hadlo laakaha media aniga maanta ma xanaaqsani qofna ma raba inaan xudhimo xitaa iyadoo waxyaalaha foosha xun ku hadashaan rabin inaan jawaabo balaaya kugu dhacday dhaabkaaba hadday marayso jawaabba male subxaan allah waxaan inii sheegayaa laakaha media horta laakaha media horta social media waa in qabyaalad bay ku dhaqantaa inna fiyu bay ku dhaqantaa inna saaxiibtinimo bay ku dhaqmaan oo qabiilba ma yaqaaniino waa sida annagoo kale boosbaas waa qabiil kale anu qabiil kalaan ahay liibaan waa qabiil kale iyo qaar kaloo badan marka shaqama kuliin waxaas anagu qabiil waxaa shaqa ku melin shaqadeeda maaha wixii nagula isticmaalna iyaga u taallaa anaguna ma isticmaalno runtii taasna waxaa daliilkoogu ah laakaha media waa aniga in adeerkay laakiin isagu maaha qolyaha qabiilkii waxaase waa qolyaha fiyu darteed waa kuu dili karaa waana kuu aasi karaa la socda wuxuu sheegaan waxba kama jiraan mar walba wuxuu jecel yahay inuu cadaalad noqon oo dhan uu rarmo sababto dhan uu rarmay ma taqaanin sheekada kululaanaysa waa idhiye ma odhan kabacdina fiyuga laba kacaya laakiin wuu ceeboobay boosbaasna wuu ku ceeboobay sababta uu boosbaas u eryanay sirta waxaa siisay naagta la idhaa muna sababta u siisana waxa weeyaan inuu waxba iska celin karin boosbaas oo iska celinta macnaha feer haddii la yimaado dagaal uu ku rawaxinayaa kaarateegu yaqaanaa laakiin baa meesha ku jirta ma yaqaana sida loo hadlo ma yaqaana sida wax laysaga dhiciyo sidaa aawadeed ayaa boosbaas waxaa la sameeyey wejigiisa inta la qaaday ayaa waxaa lagu rakibay wixii 1900 kala guurkii magaalada yaalo oo dhan oo naagaa oo 10 sano iyo 8 sano 4 sano ka hor wixii meelaha lagu soo tuuray oo dhan madaxiisii baa la suray si fiyu badan loogu helo kaartadaana waxaa wadatay kastuumo iyo laakaha media wada shaqeeyaan waa loo jeedaa wuxuu ku hadlayo halkan waxaan uga mahad celinayaa wiilal badan oo qaar aan magacooda garanayn oo sida sharafta u dhaqmay oo youtuberaa waliba wiil ani hore uma arki jirin baraha bulshada magaciisina telefoonkan buu igaga jiraa garan maayo si aan ku sheegay imika one day laakiin waan ogaan doonaa magaciisa macnaha waa in soo tusi doonaa magaciisaan ka wadaa maxaa ku diiday inaad sida u hadashid maslaxoo kale maxaa ku diiday inaad u hadashid laakaha media sida maslaxoo kale aad cadaaladda u qaado ma ogtahay maslax intaasoo qof oo anigu aan markhaati ka ahay inuu xaal mastuur ku dhameeyey oo uuna fiyo ku raadsan oo dad is haystaa oo shicib iyo fanaaniinba labadaba leh anaa markhaati ka ah baraha bulshahana muu keenin adina anagii baad meesha nagu khasbaysaa oo doonaysaa fulxumoy nooga sheekayso iyo waxaan dhicin de maanta ma anaad khaliisa igu soo rakibi doontaa way kaa suurtowdaa marka
ragam sida maslaxo kale ina noqota ku fiican waxa kale oo ku jira meesha maxamed buskud dameerkiisa shaqeynaya isagana allah iska daayo wiilashaas waa wiilal aan jeclahay waa wiilal dameerkooda shaqeynayaan waxa kale oo aan jeclahay oo laakiin aad adigu ka tuurtay koofiyada hadda si aan leeyahay waxba kuma qabna anagu koofiyadaadii iskaga soo noqo ninka la dhaa boodhariga caashiqa la hadlo xitaa waa artay liibaan soo ugu xadgudbay waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo qola aan iska abhiyey laakiin dalaqi soo tiri qoladaasna wallaahi ma doonayo inaan ku xadgudbo laakiin warning baan siinayaa waxa weeye waa qolyaha xujo isku sheega ilma xujo dadka aan idin soo gelin u sheekeeya annagu waxaanu nahay dadkii meesha joogi jiray nooca u dhaqantiin iyo waxaa tiina waa ognahay uma baahnin marka annaga xitaa waxaan ogahay inay dadka baraha bulshada ku jirin og yihiin wax badan kama soo wareegin fulxmadiina iyo wixii alxaasil ma raba ina meel niga dhaco ma dooniyo inaan ka hadlo wixii ku noqdo ha igu kalifina afar inuu fiiro waaweyn baa isku soo raacaya boosbaas talabaad inaan kan odhanaya cabdixamiid maxaa tiri waxaan ahay anigu af hayeenka xujo anna waxaan ahay af hayeenka dulbidiidka intii ka timiday ninkaas iyo meesha aad u taliso aad markaad leedahay af hayeen baanu ahay intii ka timaado ugu horeysa laki ugu dambeeyo boosbaas ma ogoli afkaaga inaad ku soo taagto waxaan kaloon kuu sheegayaa boosbaas jealous baa ka tahay haddii aad doonayso runta waa ka hadlaa waad ogtahay boosbaas habeenku soo baxayay qofkii daadahaynayay oo abuukar iyo isku diray boosbaas oo nacamlaha waday qofkuu yahay cabdixamiidow yaanaan runta ka hadlina iga leexo adiguna aday meesha qiimo kuu leedahay noocaa u dhaqantiin iyo sharafta aad leedihiin iyo waxaad tihiin oo dhan baraha bulsha waa lagu ogyahay annana waa ognaho hortaabaan soo joognay cabdixamiidow meesha shalaa timidaba hortaabaa la shubi jira awow in kuleeg dhulka fadhiiso ha ka hadlin fanaaniinta soo baxay ee dulmadiidka haddaad ka hadasho wallaahi baan ku dhaartay dagaalkii waxaa dhici doona labaad oo dunida waana la isku yaacayaacaa waxaan la hadlay amaara cali shoobara markuu abuukar mahdi kusoo qorayay meesha qoraalka waxaan dhahay amaaroy ma doonaayo inaan magacooda soo sheego ma doonayo inaan waxu dhimo la hadal baan ku oran I don't know inay la hadashay in kale you annaga nagu soo hoos dhuman baadhay yuuna soo dhexgelin bartiisa ha naga fadhiyo wax inaga quseeya male maanta aniga laki baa islaynayna beri my sister weeye laki galabta waxaa islaynaa aniga farax kaftan waa my sister intii soo baxdoo dhan annaga isqaniinayna annaga haddana isla soconno sagaara baa la yidhi xaal muuqday aastaa araday rayaal waxbay nima qarsoonee halkaa haynoo kala joogto hana iloobin boosbaas mar dambe inaa carabkaa kusoo qaado anigaa u ah afhayeen kooxdaydu ka mid yahay boosbaas waxaan ogahay waxa laga faa'iidaysanaya af soomaaliga inuu garanaynin anaa walaalo ah anaa marna walaashuu ah marna walaalkiiu ah marna atirishadiisa ah marna anuu ila dhashay maxaa ka bedeli kartaa sidaad ugu abtirinaysay abuukar iyo ciddii meesha wada joogtoo dhan ayaan aniguna inta imika dulmadiidkee maqan ugu abtirinayaa markaa kooxya isma qaadnee ina kala daaya yaynaan isku soo fafakanin haddaynu isku soo fafakanin waa ogtiin waxa dhacaaya walle iyo bille dhakafaar baa dhici doona